maanta waxaan joognaa mid ka mid ah magaalooyinka ugu qurux badan dhulka Soomaaliya. Isoo dhawaada muuqaal cusub iyo magaalada Jigjiga. waxaad igu sheegi weydeen magaalada Jigjiga in ay sidan qurux badan tahay. Wow! insha Allah waxaan booqan doonaa meelo badan oo nad hore u arag. waxaan tijaabin doonaa nolosha caadiga ah ee magaalada Jigjiga, sida ay u nool yihiin dhalinyarta iyo dadka magaalada ku nool. suuqyo aanad hore u arag, meherado, kafeteriyaal aanad hore u arag, ama xalaajabigan aadka u qurux badan. weli ma timid magaalada Jigjiga, weli ma aragtay magaaladan aadka u qurux badan. Welcome to Jigjiga. asxaabta muuqaalka waxaan ka bilaabi doonaa magaalada Jigjiga iyo habeenkiisa way ag tahay. marka iminka waxa weeyaan muuqaalka waa bilow. waxaan tijaabin doonaa insha Allah wadooyinka cusub la hirgeliyay magaalada Jigjiga. magaalada Jigjiga muddo ka hor bay ugu dambeysay. marka waxa lagu sameeyay wax la yiraahdo beautification danka wadooyinka. marka wadooyinkii waxay noqdeen wadooyin balbalaaran. marka insha Allah inna mariyada ka ogaano magaalada wax. السلام عليكم. سكوربا والله سكوربا في عساي halkan waxaa lagu weynaysaa inan ka mid ah hablaha reer Jigjiga. markii ugu horeysay magaalada Jigjiga, meelaha as leedahay qofka kula taliyo inuu booqdo ama meelaha uu ku caawin karo. inuu magaalada dhexdooda laamiyada meelo kale ma jirto habeenkii lagu caawiyo kale. maxaa ka mid ah يعني هوتيلada quruxda badan oo kale loo tago cawska. ما شاء الله. magaca walaal aniga xamdo ma santahay. dirbaba xamda muxuu hayay nagu soo dhaweysay magaalada Jigjiga. marka casarkii inantaas waxa noo sheegtay in ay dadku wadooyinka lugeeyaan oo isku sawiraan oo jawi ku qaataan. waxay la sidoo kale waxay la socdaa khadar bay la socdaa. soo dhawo Jigjiga ku soo dhawo. aniga soo dhaweynaysa. salaam ya saaxiibada. kugu cusbaan filaya soo ma waxaan joognaa Jigjiga oo la bedelay gebigeediba wadooyinkii waaweynaa dhisaankii la bedelay. imika waxaan hormaranaa howlkii shirarka sayidka meesha la yidhaaho. koleyda Axmed saan sheegay ku yar dhaama halkan howlkii sayidkeeda garamaran kan يا حرمت حسبي نواتن حرمت حسبي نواتن يوم marka waxaan leenahay ku soo dhawaad Jigjiga oo la bedelay la qurxiyay wadooyin waaweyn yeelatay. sida noo sheegay khadar insha Allah wadooyinka eegi doonaa iyo sida qurxiyay. basaska sida xogta ku hayo waa basaska dadweynaha. basaska dadweynaha wada Jigjiga waxa ku ogaawn bajaajkan ku ogaawn. wadadan bajaaj waa laga mamnuucay sida xogta ku hayno. bajaajtu waxay martaa wadada sayidka maxaa ahay soddonka ee dambe. jidka soddonka la yiraahdo xagga dambe marta. wadadani waa highway-ga magaalada barkeeda marayay. marka goobahani waa goobaha loogu talagalay in laga raaco baabuurta dadweynaha. Jigjiga haddaad ku ogeydeen bajaaj meelaqaad ka wadadan intan la qurxiyo dhan bajaajti waa laga joojiyay. waaw Jigjiga aniga lafteeda xogaa maan fiirsan maan xogaa waxa ka horba igu dambeysay intii aan wadadan san loo qofin bay igu dambeysay. marka dee waxaan leenahay wax kale marka habeenkii markuu soo galo leerarka asaas baa sida oo badan guriyaha ka muuqda. leerarka asaas baa sameeynaya qurux. hadhow way ka qurux badan tahay waa safilayo. marka xaggana waa meel loogu talagalay baaskiilka halkan dadka shaqada gawaarida. insha Allah halkan lafteeda waxa lagu talagalay sidii magaalada Addis Ababa in moobilada charger ko kale loo diyaariyay halka. gawaarida ku shaqeynaya electric maya moobilada dadku inay ka dabaystaan intay fadhiistaan hadee way yara sugayaan qolka dab ka dhaco hadda charger kiisu makada anu yar gashan karaa. chargerkii baa ka imid laakiin sorry insha Allah sorry mate. baadi saacada ka bacdi waan eegi doonaa insha Allah bal suuqa dhaxal marisan doonaa. story baan sameyn doonaa insha Allah. waxa weeyaan salaadii maghrib baan ku soo socnaa. dhinaca masaajid baa ka muuqda. masaajidka waxaan ku tukaday biri horaan ku tukaday.
magaciisa maxaa la yidhaha magaciisa ma garanayo laakiin masaajidka suuliga dad gasho lacag yar baa la bixiyeen suuliga free baan falay lacag yar ma bixin wallahi wuxuu yidhi haddii aanan hayna maadaama anagu qariib hayna aanan garanayn wuxuu yidhi iska daaya oo iska gala marka wataa magaalada jigjiga uma adrakama magaalada jigjiga insha allah waxyaabo kala duwan baan soo duubi doonaa magaalada jigjiga sida quruxda dhaqanka cuntooyinka meelo qarsoon badan oo la arag waxyaabo badan baan isku dayi doonaa insha allah marka nala socda asalaamu calaykum magaaladu way dhalaalaysaa qaybahana waxyaabo kale laga dhisaya baan filayaa baasha maxaa lagu talagalay waa dabdamiska isagoo gaas biyo xagga waxaa laga dhigayaa meel la fadhiisan karo oo magaalada laga daawan karo ayaan filayaa karaboon magaalada waxaa qurxinaysa waddadan weyn iyo waxa weeyaan magaaladii wada cas iyo waddadii nadiifa maasha allah tabaarak araxmaan marka waxaan ka tallaabi doonaa meeshan oo loogu talagalay inay dadku ka tallaabaan waa markii labaad aan ka tallaabayo mar horena halkaa horean ka tallaabay marka gaadhigu isaga kaa istaagaya kaas aniga istaagaya marka halkan waxaa yaala qurux baa taalla iyo meel la iskugu imaado in la isku sawiro waxa weeyaan duule maxaa looga jeedaa duulaya marka waa mid ka mid ah hoteelada 5 starska ee magaalada jigjiga ku yaala halkani waxaa ka dhigan tahay mid ka mid ah meelaha ugu qurux badan waa fiidkii iyo magaalada jigjiga dad badan baa iskugu soo baxay meeshan ama goobtan in ay isku sawiraan marka waxa weeyaan duule hotel waa mid ka mid ah hoteelada ugu caansan uguna cusub magaalada jigjiga khadar baa sheegan ma ogeyn waxa weeyaan 5 star hotel khadar hotelkani waa 5 star hotel maalmood baa xariga laga jaray kulli gudaha meena gelin laakiin horta aad buu qurux badan yahay masaxana caawisa lagu saxato wargoyn ismala habeenkii baa $100 kulli waa iska normal ka dhalinyar baa isku timid meesha sawiro ay ku galayaan halkan wadadii qurux badan baa dhinacan ka xigta halkan waa Bridgestone-kii meeshii la marayay gawaaridu iyaga ka istaagaya leer iyo waxba ma jiraan marka halkan waxa weeyaan biyo dhac yar oo gacan ku samaysa marka dadku waa bartan ku sawiray waa bartan aniguna anigaas ku sawiray ما شاء الله ما أعرف خذي ومسبح وحسيدي ما حسيدي بقى سعر بخذي عادي ما حسيدي الحباش نوع كان ورا لا أنا قاعد طوب أنا كده ما تشنيه هاي ولا هاي إن وهي waxaan cunaa xasiidi oo la kariyay oo laga dhigay arabakhi baa laga dhigay xasiidi arabakhi laga dhigay inkastoo tii cadaytan tii casadahayn anu taa cas baan jeclaan jiray marka macasaraad ku daraysaa geedaha lagu darayaa caanaha lagu darayaa halkan waa geedihii talo masasan lagu daraa maqaacad dabii qoynaysaa geedahana saasoo lagu darayaa balaan tijaabino markaa خضر ما واحد ويا مركب كوري سيدا عرفتو حسيد العناية حسيد العناية سيدا الله عناية هذا والله هرب ورق توصل الله عناية يدل الكريو ده كتالا قال كيدي ده قلت كيدي لكن يدل الكريو صار الله عناية ما أنا أنا وحبيبي يعني مركي لبعض أركو مركي كوبادنا وحنا كاركون مقالة شيء نحن صاحبنا هاي بيجي marka isagu arabakhi way dalbay laakiin markan dhadhamiyay ayaan ka dareemay inay xasiid tahay asan ku yidhi ma xasiid ba marka wuxuu yiri xasiid marka magaalada jigjiga waxa lagu cunayaa cuntada wadaniga ah cuntada ma haysan miya caadi cuntada wadaniga lagu cunayaa marka haddii aanad jigjiga
cunin muxuu ahaayey xasiidan laga dhigay arbakida magaalada jigjiga waxaan odhan karnaa maad iman khadarow see dhadhamaysaa wax ma qaacuna ya okay walaaba macaan bisan kaanu qabanaa bismillaah weliba marka caanaha lagu daray macaanta marka caanaha lagu daro waxa weeyaan waan jilicsan tahay xasiidina waa ku dhadhamaysaa arbakidina ku dhadhamaysaa waraalahada sacad qaado cadi ma hayd xasiidda waxaa lagu garanayaa waxaa ku dhex jira maxaa la idhahaa cawskii madaxii xasiidda muxuu ahaa magaceedu magacna way leedahay magaca bay leedahay taa saddex qaban kartaa maanta ma arkaysaa baan filayaa maxaa loo yaqaanaa alaabtan maxaa loo yaqaanaa waxa weeyaan subax hore magaalada jigjiga aroortii hore aan kaca dadku way wada shaqo tagaan bajaajta gawaadhida qofka alaabta sida kaaryoonka baska dadkoo dhan waxa weeyaan biisi weeyaan mashquul weeyaan waxa weeyaan magaalada ka yaabay siday ganacsigu kala socdo iyo mashquulka marka waxa weeyaan sideedii subaxnimo weeyaan sideedii subaxnimo quraac tegaynaa marka maadaama safar nahay waanu yaraa in yar baanu yaraa seexannay marka dee magaalo cusub haddaad timaado waxeeda la tijaabiyaa marka magaaladan dee canjeerada iyo waxyaabahaasay caan ku tahay markaa saaka bahal canjeero afakaadho laydhaa baan ka soo cunayaanu meelahan maadaama doo hore aan tijaabiyey canjeero iyo afakaadho laysku cunayo khadarna wayla socdaaba wuxuu tijaabiyeen eegi doonaa canjeero afakaadho lagu cunayo weeyaan khadarow canjeero afakaadho lagu cunayo haa horta anu hore uma markaa green iyo khadafta bay noqonaysaa soo soco canjeero afakaadho lagu cunayo haa anu hore uma arkin haye laakiin insha allah haddii macaan tahay haa oo kala soo eegay waxaasoo bajaaja eega kuyuu way ku jireen markaa tooska hore meesha waa la bedelay khadarow meeshii aan garanayey waxbaa laga bedelay laakiin halkaa hore aan filaya in ahayd ama sekada ku xigta ina mariyaan waxaan nimayd hotel yaroo dhuumoo dheriga hotelka dhuumoo dherig ba la idhaa xagga soo barsaba ee khadar dhuumoo dherig ba la idhaa hotelka yar waxa la idhaa khadarow dhuumoo dherig ba la idhaa marka la safrayo waxa jira in qofku dhaqaalaha ku xisaabtamo hadda weliba janabkiisa uu yaryahay uu yahay mid yar magaranaysa oo yaali bajetka u ilaaliyo maxaa la idhahaa bajet traveling baa la idhaha mogti bajetka ilaaliyo marka waddankan Ethiopia wax soo saar buu leeyahay dadku wax soo saar buu leeyahay qudaar buu soo saaraa wax soo saaraa marka lacag yar joon baad ku cunaysaa cunto borotiin maxay yeelan saaxiib maxay yeelan هذا waxaa ma fahmin ka dhacan jeero man doonina beer halka boowi inuu filan laba ha هذه أفكار دي بنشتريها براد سبيشال maybe kaanta canjeero beer mukulaan xagaar baa lagu diyaarinayaa inta badan Ethiopia dumarka diyaariya quraacda iyo beedkan iyo canjeeradan iyo waxan canjeero ka soo baxaysa miskar banaysanaa aniga khadar waxa weeyaan xaafadahaygii man joogin xalay man soo baxo maxay dee magaalada waxa weeyaan fiidka waa la galaa hotelada yes moodinina ma laakiin hore loo marka hore anu hubinay cunto labaad iyo cashadii waxaan cashaynay maqribkii marka aad baan u gaajannaa kaanta wala soo wadaay wala naga soo dhaqsada ya kan soo keenay baashi waxa weeyaan haysiina
waxa weeyaan canjeeradii waa timid marka canjeerada idin sheegayay waxa weeyaan xagaas waxa ku jira beedkii baa ku jira halkana waxa weeyaan afakaadhadii weeyaan sidoo kale in yaroo basala iyo xagana waxa weeyaan canjeeradii oo indho badan leh marka canjeer Soomaaliya taqaanaan way yar tahay tanna waa tu weyn weeyaan aadna way u dhanaan tahay oo waa acidic in badan baa la khameeriyay marka bladkaygu saaka intaas ka kooban yahay xagana sidoo kale roodhiga noo taala iyo biyahaas iyo ninkii khadar oo xagga fadhiga karla oo doonaya marka cuntada waan sugi kari laanahay weli canjeerada noocan ma cuntay canjeera afakaadho beed iyo basal yar weeyaan marka waxa weeyaan bisinkaan qabanaa waa salaad hore marka hore waxaad ka bilaabaysaa canjeerada ka bilaabaysaa waa first step marka afakaadhada ku qaadanaysaa iyo beed xaladaas u qaadan marka saas ku qaadanaysaa bisinkana waa u qabanaysaa bismillah waxaad dareemaysaa muxuu hayay subaga borotiinka canjeerada iyo afakaadhada isku dhex jira marka canjeeradan waxay leedahay subag aad u badan weliba waa mid xilligeedii la soo gooyay oo bislaatay oo aan qaylinahayn oo aan kala madmadoobeyn weeyaan oo akhtar iyo huruud ku jira markaas ma filaya marka hadana waxa weeyaan baadkii mar baan soo qaaday xabad kale iyo afakaadhadii inagu qacmaan ku cunaay waa annada leefan wuxuu hayay dad jigjiga timaadaan dalxiisisid ama aad ku cusub tahay quraacdan waxaan ku oran lahaa tijaabi runtii aad iyo aad bay u fiican tahay waana borotiin waxaa laga yaabaa hadda intaa cuntid inay maalintaadu ku saxmato oo jawigu ku saxmo warhade iminka waxa weeyaan waan soo quraacnay saad arkaysaan dee magaaladii jigjiga weli fari kama qodna waxa weeyaan aroor waa 8 iyo dheeraad cabaar oo sagaaladii ku sii dhowdahay marka quraacdii waxaa nagaga baxday 330 bir marka 330 lacag badan maaha waa $2 waxaan filayaa $3 ma gaarso marka waxa weeyaan halka $1 waa imika wuxuu taagan yahay haddaan bedelno 173 ama 370 bir marka wax naga quraacda waxay ku kacday 330 bir marka hadii soo qaabiya marka jigjiga aroortii ay shidan tahay dadku ay shidan yihiin qof kasta oo degdegaya shaqadiisa iyo hawlihiisa qof ma darno u socda ma jiro qof kasta macno u socda marka namariyada magaalada dhex quusina insha Allah kala arko هلا ولي waxa weeyaan magaaladii jigjiga ayaan dhex socnaa maanta waxay la socdaa Amid nin la yiraahdo oo YouTuber oo reer jigjiga ah isagana kala bari doona magaalada jigjiga maanta xagan maxaa la yiraahdaa qaybtan joogno qaybtan joogno saaxiib waxa weeyaan waa suuqi waa dhinacii suuqa caadiga suuqi weynaa magaalada jigjiga ah ayaan joognaa marka saacadna waxa kugu soo dhaweynaa magaaladii jigjiga aad kugu soo dhaweynaya ma markay kuwada timaado jigjiga mar labaad markii labaad saddexaad mar saddexaad markii saddexaad jigjiga kala ugu jigjiga kala laba cisho iyo hal cisho waxaasan joogay marka oo markii koobaad aan si fiican u dhex qoyso aan tago meelo badan soo caawiyay macale PlayStation soo ciyaaray weeyaan laakiin markii aad ka tagisay waxaad ogeyd jigjiga kala ogeyd jigjigadan ma ogeyd jigjiga qurux badan ma ogeyn waxaan u yimid baynaan daawado quruxda waxaan ku weydiiyey shaaha ama kafeega ugu wanaagsan xagga lagu sameeyaa waxaa lagu sameeyaa inaad nala aragti mooyaane shaaha ninka meel dhahaan shaaha ninka maanta cabnaan male marka shaaha ninka
nin baa sameeya shaha ugu macaan jigjiga ma nin baa sameeya mise gabadh baa sameeysa nin baa sameeya nin shaaha nin kala dhaayba shaha nin sameeyo baad cabbiba gabadh ku sameeya cabbimaysa halkan waxaan soo gaarnay waxaan filayaa meeshii sayidka soo gaarnay taalada sayidka oo la jirtay berigii hore iminkana waa la yar qaaday meel yar u dhowan weeyaan isku dhaweynaa baa la geeyey waa loo sameeyey boodhkii wixii baa laga yar qariyey yaa wadada wuu saaran yahay masha Allah bartan waa barta ugu quruxda badan magaalada aad baan uga helay amid waad mahadsan tahay sida wanaagsaneed noogu soo dhaweysay magaalada jigjiga iminkana waxaan joognaa mid ka mid ah dhismayaasha ugu dhaadheer magaalada jigjiga dhismaha waxaan filayaa inuu yahay dhismayaashii ugu qadiimsanaa maadaama xaggan taaladii sayidku ay ka dhowdahay marka xaggan waxaa ku jira maxradaha ku jira goobtan waa dabaqii koobaad marka fiyugan qurux badan baad iska daawan kartaa casarkii oo kale waddooyinkii oo ballaadhan iyadoo meel sare saaran waxa weeyaan jawi aan la heli karin weeyaan marka waddooyinka oo la qurxiyo ama la ballaadhiyo waxay samaynaysaa bilic gooniya u samaynaysaa magaalada marka waan u hambalyeynayna jigjiga guul iyo gobonimo iyo qurux iyo bogaadimeen dusha kaga tuuraynaa masha Allah kusoo dhawaada magaalada jigjiga meelo kalena insha Allah hadday noo soo tagalaan waan tegi doonaa